Pesa yuko rafiki hakuna. Pesa gani? Pesa ni mingi lakini rafiki hakuna. Kenya una rafiki? Matiti hakuna kile pesa mingi. Matiti. Wewe Yuko unatafuta kile pesa matiti? mingi. Ah, wewe yuko. Wewe Hii pesa ni unatafuta mingi. Wewe hiyo ama wewe. kwangu? Mimi. Yuko. Ah, pesa ni mingi. Kwangu pesa ni mingi. Ah, kia kuni. Ya, hiyo ni mbaya yake tu. Ya, yani. Allah bajra. Ay hada. Ay Maxamed, ana waa ku dhageysana aabo, ana oo i dhageysanaysa. Waa diyaar abay wala shay waa maasinta. Diyaar way. Waa kasi waay. Okay. Haye. Su'aashii hore oo ahayd ma lagu qaba inaan kaaga jawaabo rabtaa soo ma ahan? Waa diyaar wala shay waa ogol yaani. Hade. Ani hal suuni ruuxa ma aho. Waa dirito. Ya. Dirito Waa way. dirito waay. معناها Okay way. Waa kala jam way kala jam. maxaa kala jaan ka dhigay waaba isku jaane. Waa dirito soo gaaban ka dhigaano. Gaaban waa dhigano. Allah aniga Cabdi iyo Biig kala xagee kala aada waa kala jaan ku lahaa. Masuuniyaha kala jaana. Dirito wala. Markesa ayam mahawe. Tisu. Wala bila. Mamane nga jarke geski pone mane nano. Ya. Sana gido mamane nga jarke geski ni pone ro wana hayo. شعرك يجري أكثر إذا جعل الله يكون Wala bila. قفا صواع هينو Wala so aniya. تليفون كده ولا صواع يا Iskande mi ma agway. هدي كنت بس يقول هذا دي Adi wala ala kunjo. Maxamedow. Ay. Maxamed. Qofku markuu ka tago oo telefoon soo galo tuubaraac waxa la dhaho looma sameeyo qofku markuu ku soo galo lama caayo laakiin markuu ku imaado la dheeranimo waa la caayaa waa lagama daba hadlo qofka waa la telefoon markiso war aniga dheeraan ma ku weydiinin sugbal horta waa xanaaqsanahay aan bururay waska ka deeniya okay asxaabta qaaliga saaka quruxda Maxamed Aamus hayde asxaabta aad ku quruxda badan ku soo dhawaada live-keena aad ku quruxda badan aad bay niga mahadcelinayaan sida aad ku quruxda badan aan loo daawanaysaan caaw halkan waxa noogu marti ah aabeenan aad ku quruxda badan aabe Maxamed oo ku magac dheer Bikolo waa arooskiisa ما شاء الله عاو waxaan rabaa inaan ka qayb qaato arooskiisa maadaama horta maalmaha dhacay soo gan waa xanuusnaa waxay ugu dambeysay maalin hore leef ugu dambeysay waa xanuusnaa caaw marka waxa uu soo galay xanuunkii dhanba waxaan u ilaaway iyo wixii ahay waxaan u ilaaway dartiis baa u ilaaway sidaas baan leefka u soo galay ana xanuunkii waa iska cadkinin waa iska qara waa caafimaad iyo alxamdulillah taas cidna taas igama caawinayso laakiin caaw waxaan rabaa aabeen Maxamed Bikolo aragu aroosi rabaa waxa xun inaad luqluqyada marmartid laakiin waxa fiican inaad waxa ratid aad u bareertid hadaad waxaysatid iyo hadaad wax haysaninba aabe Maxamed waa aabadan yar wuxuu yiri waxaan u baahanahay inaan arooso sida saaxiibkay kale to Cabdi waxaan u baahanahay Soomaali shilay garab istaagtay Cabdi ani inay garab istaagto oo wax ii qabato ana waxaan ku waayahay aabo anigu waxa arkay video uu ka soo duubay Nuur telefoonka lama hadlin maqalkiis ma maqlin muuqis ma arkin meel kale ma hadlinin videoga maalmaha dhan baan ahay ilaa ma dawsiyo hada saa u dhiibanaysin ana geeskayga uga dhiibanayo wallahi waa inii dhaartay saa gees uga dhiibanaysin ba ana gees uga dhiibana waxayga la baxaa islaamka ilaahay baa u baryaa waxa dhahaa qofkaas walaalkii ah waxa loo sadaqaysto waxa loo aruursado adduunka wax la isku yaa aakhira waxa ma la isku ahan wiilka walaalkeen ah adi ma qof la hadlay qof telefoonka hadlay ma qofkaas telefoonka hadlay هذا ما باي تليفون asa qofkan haga hadlay maqlaysan ani maqlaysan si wanaagsan lagu maqlaa ani marka ano wallahi been inii sheegaynin أنا قفك مركا هالكا كعاويو هالكا سايقو دنبيس مسي دبقلا وحي محاكو قبتي مدها إسلامك وحي كسيان محاكو سميسي مدها واي أنيقا قفك هالكا مر وإلها دلو وإيدان شاكتو وإذن كان إنيدان شاكتو إيقا بدن
markaas aaminaa markaas asku kay dambayso laakiin ani ma dhaho lacagtan ma runba ma beenba ani waa arkay dad badan way soo wacay waxay ku dhahan waxa sameynaysid ma sax ba mise wax khalad waxa ku yiri ani ilaahay subhanahu wa ta'ala og ani nuur wakaasa markuu aroosinaayo cabdiyo nuur aqoon isku malihiin sala social media ku arkay wiilkaas asagoo dhahay museegana rabo inuu aroosto WhatsApp kaas kala hadalnay figur walaalay habeenku ibelamiye ma ahaniya oo habeenta baaleef soo gana habeenkii ka horeeyay wuxuu ku yiraahday oo maanta uu ka dhawaanaya iskala meesha marka Soomaaliye anigu wax sikreeda inii sheegaya anigu waa inigu qoslina ma ani marka leef soo galo ani ma inii tuugsanaa laakiin qof miskiin ah waa inuu tuugsanaa marka leef soo galo ma aragtay oo sadaqada iska dhiibta haddii xataa ani waxa arkay dad dhahay halo waa la yisir $1 iga qasaarto qof intuu gift qof maxaa jirta sadaqa baxsado wallahi kaamay qasaarin haddaan yeesatay way ku gashay laakiin qofka sadaqada siisay hadduu ku khiyaamay asaga ilaahay bay dhextaala ilaahay baa ka xisaabinaa adu ilaahay ma tihid aw sadaqadaad waa la baxsatay qof maskiin ah halkaa ka bax allah $1 baan bixi allah $1 halkeygii $1 alaysa celi daddaa aan arka war iskada Baba J waa maasan tahay thank you so much meesha ka soo bixisay wax khayr qaba Allah kugu bedelo aad maasan thank you so much Baba J dadka waxa dadka warheede lacagta hashan sinti war hal sinti hadaa sadaqa ku dhiibatid ha ka daba hadlin ana maanta sadaqa dhiibataan ku sheegay ani wallahi nuur wakaas ani nuur maalin kasta waa u sheegaa maxaa dhahaa nuuro hadaa leefka soo fur oo sadaqa baxso dadku waxa dhahaa isheegina iga aamusa ani maana inii dirsaday akoonkayga markaa sadaqada la baxo cidna ma ugu baahan inay sheegto meelaha ima marso wallahi waa iniga xanaaqa inii ma dirsan hadaa inii dhahaa وما بهن قف إنه يدوب أنا وقفت الدار sweet Marian aad ba ma santahay sweet Marian waa ma santahay thank you so much أنت قفت قدر ستة ولا ليال معانا ما شخص بحس الله سبحانه وتعالى وحقيقة بيني قبله أصحابي أنا وحا أني لا يا فكرة دان إيقاطة هديكو أنفع عليكم أنت وحا يقول هذا رحمة thank you هديكو أنفعينكم أنت وحا يقول سوقرتا ولا علي كمهلين